nin dhalinyaro ah oo Ilaahay hanuun la doonay ayaa wuxuu yidhi, waxaan ahaa mid aanan tukan jirin salaada, sigaarkana afuufa, xumaha isaga dhex jira, ma aanan dareensanayn waxa uu yahay dembi, towbadna ha sheegin. Waxaan ku farxi jiray keliya inaan ahay Muslim, naxariista Rabbina ay weyn tahay, laakiin waxaan ilowsanaa in ciqaabtiisu ay daran tahay, qabashadiisana aan laga baxsan karin. Weligay masjid maanan gelin, inkastuu masjidku ii dhowaa. Xilli walba waxaan maqli jiray aadaanka salaadaha, laakiin maanan ajiibi jirin. Bisha Ramadaan markii ay soo gashana waa bisha keliya ee aan tukan jiray, waana soomi jiray. Ma garanaya sababta, ma bishaas ayaan caabudi jiray. Sidaa ay tahayna, bishaasi ma geli jirin masjidka. Habeenkii waxaan u tegi jiray asxaabteyda si aan ula soo dhafro. Xilliyada qaarna galab hore ayaan bixi jiray oo aan magaalada geli jiray. Kama aanan fikeri jirin guur, caruur iyo mustaqbal midna, inkastoo aan wax ku darsaday da'dii 35aad. Markaan gurigeyga ka soo baxaya waxaan wadada horteyda ah ku arki jiray gabar ayada dhan wada xijaaban oo masjidka inoo dhow galaysa. Waxaan iska dhaadhiciyay sidii aan gabadhaas kula hadli lahaa oo aan gurigeyga ku keensan lahaa. Nafteyda xumaan ayay ii qurxinaysaa, shaydaanna bini'aadamka wuu dhagraa. Iima muuqata haybadda iyo sharafta ka muuqata gabadha. Markay socoto waxaad moodaa in wadada ka bax la yiri. Derbiga ayay isku dhejin jirtay. Inta badan waxaan arki jiray ayadoo u socota salaada casarka. Waxaan go'aansaday inaan la hadlo, laakiin iima jawaabto. Dhowr galab haddii aan sidaasi u bartilmaameedsaday ayay i dhibsatay. Galabkii dambe ayayna go'aansatay inay ila hadasho. Meel aan albaabka gurigeyga ka fogeyn bay maraysay. Markaabay igu tiri, maxaad iga doonaysaa walaal? Waxaan ku idhi, waxba soo dhaaf, gurigeyga soo gal, waa keligay oo qura, cidna ma joogto. Markii aan hadalka iyo kaftanka ku badiyey oo ay u jeedda inaan ahay qof Ilaahay ka fog, iyadoon i canaanan igana xanaaqin, ayay igu xirtay shuruud si ay gurigeyga u soo gasho. Waxay igu tiri, gurigaaga waan soo geli doonaa, weliba sariirtaada ayaan ku fadhiisan doonaa haddaad ka soo baxda shuruuddan. Intaan farxa ayaan ku dhahay, maxay tahay shuruudda? Soo daa, wallaahi waan ka soo bixi doonaaye. Waxay tiri, 40 casho ama 40 maalmood waa inaad masjidka ku tukataa salaadaha oo aad casarka iyo subaxa kadib dhagaysataa duruusta masjidka insha Allah. Kadib anna waan kuu furin doonaa balantii, haye waan yeeli doonaa ayaan ku dhahay. Kadibna way iska baxday. Halkii baan hawshii ka bilaabay anoo fulinaya balantii. Laakiin 2 isbuuc gudahood anigii dhan waan isbedelay. Waxaan is arkay anigoo ooynaya mar walba markii aan ogaaday halkii aan ku socday iyo baadida i haysatay. Markasta waan ka shalaayaa inaan ilowsanaa hadalkii nabigeena suuban, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, ee ahaa, annaga muslimiinta ah iyo iyaga gaalada ah, xarigga inoo dhexeeya waa salaada, kii ka tagaana waa gaal. Toobad nasuuxa ayaan toobad keenay, waxaana intaa kadib noqday qof ka qoomameeya falkii uu samayn jiray. Waxaana noqday qof masjidka ku xiran oo salaad kasta safka hore taagan. Waxaan helay raaxo iyo iimaan, inkastoo aan ooyi jiray mar kastoo aan soo xasuusto ficiladeydii xumaa. Subaxii ay 40 casho ka soo wareegatay ayay ii timid gabadhii. Salaanta islaamka kadib waxay igu tiri, haye ma kuu fuliyaa balantaadii? Waxaan ku dhahay, macaadallah walaashayey, aad baan uga shalaynayaa hadalkii aan ku dhahay. Dhanka kalena waxaan ku farxaa inaad hanuunkeyga sabab u noqotay. Orod iska laabo, Allaha ku xifdiyee. Waxay igu tiri, walaalkayow, waxaan ku kalsoonaa Rabbigay inaanu i dullayn doonin. In badan ayaanan ku hanweynaa inuu ducadeyda aqbali doono oo uu ku hanuunin doono, kana masiixi doono laabtaada wixii ku jiray. Mahad waxaa iska leh Allihii ajiibay baryada addoontiisa ee dhowray addoontiisa. Iyadoo ilmeynaysa ayay sidaa tiri, aniguna intaan madaxa foorariyey ayaan la ilmeeyey. Muddo yar kadib, gabadhii markay aragtay wanaaggeyga iyo sida aan mar walba masjidka ugu xiranahay, way ila soo xiriirtay, waxayna ii soo bandhigtay guur. Kaalmada Allah subxaanahu wa tacaala darteedna wuu noo fududaaday guurkaas. Waxayna noqotay xaaskeyga aan jeclahay. Waxayna noqotay sidoo kale gabadhii sababta u noqotay hanuunkeyga. Walaalahayow, ruuxii uu Ilaahay hanuun la doono, meel sahlan ayuu ka tusaa xaqa. Allah subxaanahu wa tacaala ha inaga dhigo kuwa uu hanuunkiisa la doonay, una carara xaggiisa xilli walba. Alle ha idin xifdiyo, hana idin barakeeyo. Qisadan la wadaag walaalaha kale si qofkii ugu cibro qaata aad ajar uga heshid, oo inoo sheer gareeya. Maalin wanaagsan.